عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. On the authority of Abu Amr, and he is also called Abu Amr, Sufyan bin Abdullah Thaqafi, may Allah be pleased with him, who said, I said, O Messenger of Allah, tell me something about al-Islam which I can ask of no one but you. He, peace and blessings of Allah be upon him, said, say I believe in Allah, and then straighten up, walk on a straight path, so do not deviate from the Sharia, neither to the right nor to the left. Muslim. waxaa laga wariyey Abu Amr, waxaana la yidhi, waxaa laga wariyey Abu Amr Sufyaan bin Cabdullaahi Ilaahay ha ka raali noqdee wuxuu yidhi, waxaan ku idhi, rasuulkii Ilaahayow wax iiga sheeg Islaamka oo aanan cid aan adiga ahayn wax ka weydiinin. Wuxuu yidhi, waxaad dhahdaa waxaan rumeeyey Eebbe kadibna istoosi. Ku soco waddo toosan ee ha ka leexanina shareecada midig iyo bidix midna. Waxaa wariyey Muslim.